nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya oo xaaskiisii la jooga ayaa yuhuud qaar ahi u yimaadeen. dabeetana waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum. assalaam maaha, waa assaam. geeriyi korkaaga ha ahaato bay ku yidhaahdeen. geeriyi korkaaga ha ahaato. caaisho meesha fadhida ayaa cadhootay. nebiguna calaykum buu iska yidhi. waxay moodday caaisha nebigu inaanu arrintan fahmin. caashi markay cadhootana waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacna. xadiiska bukhaari ku yaalla. idinka korkiinna ha ahaato ilaahay cadhadiisa iyo geeriduba idinka korkiinna ha ahaatay caaisha leeday. nebi moxamed baa wuxuu ku leeyay mahlan yaa caaisha. caaisha u kaadi sug. caaisha waxay leedahay markaa oo miyaanad maqlayn ilaahay rasuulkiisa waxay ku hadlayaan. waxay moodaysaa inaanu nebigu fahmin ama maqlin waxanay sheegayaan. caaisha markaa iyadaa wax radiday. markay radidayna nebigu wuxuu ku yidhi mahlan yaa caaisha, sug caaishaay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa rafiiq yuxibu arifq, ama waa mid dabacsan, dabacsanaanta jecel in wax la dhimriyo. qofka mu'minkiina maaha caashaay buu nebigu ku yidhi mid afxun maaha.